ciidamada Ruushka ayaa la wareegay magaalo ay ku nool yihiin shaqaalaha ka howlgala xarunta nuclear-ka ee Chernobyl waxayna muddo kooban xabsiga dhigan duqa magaalada taasoo keentay mudaharaadyo. Mas'uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in la sii daayay Yuri Fomichev duqa magaalada Slivotich ayaa wakaaladda wararka ee AFP ugu sheegay qadka taleefanka kadib markii mas'uuliyiinta caasimadda Ukraine ee Kiev ay goor sii horeysay ku dhawaaqeen in xabsiga la dhigay. Mar sii horeysay maamulka militariga ee gobolka Kiev oo hoos yimaada Slivotich ayaa ku dhawaaqay in ciidamada Ruushka ay galeen magaalada oo ay qabsadeen isbitaalka dawladda hoose. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo si muuqata u xanaaqsan ayaa ka dalbaday wadamada reer galbeedka inay bixiyaan qayb ka mid ah qalabka militariga ee kaydkooda wuxuuna weydiiyay inay ka baqayaan Moscow. Ukraine waxay u baahneed 1% kaliya ee diyaaradaha NATO iyo 1% taangiyada mana weydiisan doono wax intaa ka badan ayuu yiri. Waxaan horeyba u sugayn 31 maalmood yaa mas'uulka ah bulshada Europe Atlantic ma dhab ahaantii weli Moscow cabsigelinta awgeed ayuu ku daray. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa sheegtay in cunaqabataynta UK ee ka dhanka ah Ruushka ay ku saabsan gardarada ay ku hayso Ukraine laga qaadi karo haddii Moscow ay go'aansato xabad joojin buuxda oo ay ciidamadeeda kala baxdo. cunaqabatayntu waa inay ku timaado xabad joojin buuxda iyo ka bixitaan iyo ballanqaadyo ah inaysan jiri doonin gardaro kale. Truss ayaa u sheegtay Sunday Telegraph sidoo kale waxaa jirto fursad aad ku heli karto cunaqabatayn degdeg ah haddii uu jiro gardaro dheeraad ah mustaqbalka. ciidamada Azerbaijan ayaa fashilay isku day daandaasi ah oo ciidamada Armenia ay ku sameeyeen gobolka Karabakh ee dhawaan la xoreeyay sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan. Wasaaraddu waxay sheegtay Sabtidii in ciidamada Armenia sharci darada ah ee ku sugan gobolka oo la xoreeyay deertii 2020 tobanaan sano oo ay Armenia ay haysteen ay ka faa'iideystay cimilada qalafsan si ay uga careysiiyaan ciidanka Azerbaijan. wasaaraddu ma aysan cadeyn qaabka uu u dhacay daandaasiga balse waxa ay sheegtay in ciidamada Armenia lagu qasbay in ay si degdeg ah dib ugu gurtaan sababo la xiriira talaabooyin degdeg ah oo ay qaadeen ciidamada Azerbaijan. taliska Ruushka ee shaqada ku meel gaarka ah ee gobolka iyo xarunta wadajirka ee Turkiga iyo Ruushka ayaa labadaba loo sheegay dhacdada ayay raacisay ma jiro wax khasaare ah oo soo gaaray askarta Azerbaijan waxaana la xakameeyay xaaladda ayay wasaaraddu u sheegtay. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa qadka taleefanka kula hadlay Volodymyr Zelensky ee dalka Ukraine waxay ka wada hadleen xaaladda ka jirta Ukraine iyo heerka laga gaaray wada xaajoojyada u dhaxeeya Kiev iyo Moscow. xafiiska Erdogan ayaa sidaas yiri. Erdogan ayaa u sheegay Zelensky in uu ku nuuxnuuxsaday shirkii isbahaysiga NATO ee toddobaadkan in uu taageersan yahay midnimada dhuleed iyo Ukraine iyo in uu wada hadal laba geesood ah u gudbiyay dadaalka diblomaasiyadeed ee waxtarka leh ee Turkiga uu sameeyay ayaa lagu yiri bayaanka. Zelensky waxa uu sheegay in ay sidoo kale ka wada hadleen khatarta cuno yarida iyo siyaabaha looga hortagi karo waxa uu intaa ku daray in uu ugu mahadcelinayo taageerada Ankara. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saxiixay sharci dhigaya in lagu xukumo 15 sano oo xarig ah qofkii lagu helo dambi ah in uu daabacay macluumaad been abuur ah oo ku saabsan falalka Ruushka ee dibadda. sharcigan oo uu baarlamaanka Ruushku ansixiyay toddobaadkan ayaa dhigaya xukumo xarig iyo ganaaxyo ah dadka daabaca xog been ah oo ula kaca oo ku saabsan falalka ay dibadda ka geystaan hay'adaha dawladda Ruushka.